عربي مش وقت لكن على ضد الصوماليين أوشى الأقل المعاصر الدل كان قبل اللون ما انتهى في أن ضد الصوماليين سكتين وأن يحسبوا أبان وأن يطلعوا كغالب دل كان من مدحوينها وقت الماضي أفرت الصوماليين صوت عن يصير دل كجوي حتى نأسلوا حين يصير الماضي إنه هذا يكسر كيدادي يتابع عملنا بتاع الصوماليين أرنتاس أهل أقبل كرماء حنكو بابايا ونعم بحي وهالكيسي وماشيسي ووقتيسي ساعدها للجوغو قفصتو مواطن أو صوماليين ومقالة المكشجون ماشي الجوغ إنه قصة دقاقو وندلجك داسو سؤال بيارا كان سلطتك حابلين يا ميرا الوقت العربية ما أهوحو قوية بريد دفت يستاكتو أما ضدك أي عفصدان وإبقاء سلاس درابي ضدك الصوماليين وحامل باقية وحعاوة كدعي دلجك الداسو في هوتيل مائدة وفور حمو تيقو حمد ووير الوسوق قاضي معها لمن مدحة إيميل بنانا ووير الوسوق قاضي ديمقراطية الصومالي ديمقراطية الصومالي حرية الشخص الصومالي والله ربا إن هذا لو بالله قرن يكون لواتنا دكتاتورية يعبرس يقصر يمحقق هذا الدوس اللي بالله ما أقبل كرمان لنا هاي بتكلم ما أقبل كمان بتك الصومالي إن أقبل كرمان لنا هم وجيانو عايزكوا صباحانو برحد درجة الداسورة ده نقبلنا ساعدها للجو قفر من ماشي جوته إن كسر دقائق أيام أسود جيدنا وعن سووا ذا من هذا درجة الداسورة يعني هذا أمات سنتين ما أنت أي كائن كاي حبيت هذا ما أنت أنا له عيني له إن كاب عسلان يعني أنا كاب عسل حبيت دين يا مدح بناني دين يا حقوق دين الدستور اللي جاني هذا أمات سنتين والسلام عليكم ورحمة الله كاسم محمد هنا حسن الشيخ محمود وكهذا ما ماشي بسم الله الحمد لله الناس الصومالية ملك الجولان كل جولي وكل مكان والسلام علينا إلهي بام هذا السكالة إلهي وأمة لنا runtii caawa meesha ama wax la yaab la ka dhacay kulli wax la yaab waa dhacay laakiin dad nabad u socdo oo ka hadlaya arrimihii doorashooyinka iyo xaaladii dhacday ka hadlaya dimuqraadiyad in la soo weeraro ciidankoodii iyo barxadii iyo runtii hotel maayida oo dad madaxa ay yihiin runtii wax ugu waa wax arrin ugu cusub arrin hadda la filayayna runtii maaha laakiin waxay tusaysaa taas dowladdu inay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday dhaqankii hore oo kusoo maamulayay iyo kan tusaya qof dictatorship ah oo rabo keligiisa iyo keligi taliya ummadda Soomaaliyeed warkasta duwan uu caburiyo oo dimuqraadiyaddana ka rumiyo Soomaaliya dhibaatooyin badan soo gaaray laakiin markii dambe waxay ka dhacay dimuqraadiyad oo mar walba inay doorasho dhacdo 40 sano oo si nabad ah isku doorto taasana dadka Soomaaliyeed ku wada joogeen oo ku wada noolaayeen oo runtii ku faraxsanaayeen marka wuxuu cadeynayaa marka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday horeyna hal maalin kuma soo shaqeeyay doorasho wax la yiraahdo xabayiraatay runtii intii la soo maray maalin walba waxaan taatiga oo aanan ahayn shaqo oo dhab ah oo dadka Soomaaliyeed ay garan karaan isaan maalin wax taatiga in la isticmaalo si aan doorasho loo sameeyo marka dadka Soomaaliyeed dictator horey u soo diideen khasaarooyin badan ka soo gaaray dimuqraadiyadda ee dhammeeyay dimuqraadiyadda ay fuuleen maanta ma qaadi karaan dictatorship dalkuna ma ogolaan karo dadkana ma ogolaan karaan waana dhibaato runtii marka dibadda la soo gaaray in hadda wixii yaro oo horumarka la gaaray in la baabiyo runtii aad iyo aad ugu xunahay ummadda Soomaaliyeed haddii runtii wax hadda socdo ay ogolaadaan meel meeshan ka dheer ka raadin doonaan runtii oo meeshan ka xun oo meeshan ka dhibaato badan ay ka raadin doonaan
runtii waxaan kuu talinaynaa oo sida hadda xaaladdu ay tahay in si dhab ah oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrinteeda ugu dhiidhiyaan. marka anaga waxaan rabnaa runtii arrintii inta aan u joognay annaga si nabada banaanbax nabadeed oo qofna aanan wax lagu geysanaynin waxa anaga aragtidannada iyo ummadda aragtidooda lagu soo bandhiga aan rabnaan u joognay haddana tii aan u taaganay maada ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan reer Muqdisho waxaan ugu baaqaynaa in sidii uu yahay banaanbixii banaanbax nabadeed qof kasta uu joogo meel kasta uu joogo inuu soo dhaqaaqo ballanteenu waa daldilka daahsoon iyo inaan meesha ku sheegno xaaladda ay dalku ku sugan yahay. marka nin walba dalka dimuqraadiyadda iyo dowladnimada difaacay ka rabtaa ninkii hadda difaaci waayana runtii maalinaan difaaci karin raadina. marka waxaan ugu baaqaynaa in isugu yimaado saacadaan laga bilaabo aanan la dhihin xabadaa la tuurtuuraya meesha lama tegi karo oo dadkuna arrin ayaga iska leeyihiin arrin qof gooni ah leeyahay ma aha waa waxa kan hadda dhashay iyo midka dhalan doona iyo midka hadda nool ay leeyihiin. marka inaan wada difaacno dimuqraadiyadda iyo dowladnimada iyo horusocodka inaan difaacno. runtii waayadan waxaan soo marnay wax lagu faano dimuqraadiyad oo lagu faano oo dadka kor isku dhiib ah oo dalkuna horumar ku gaaraya. marka qofaa raba arrinta ayada ahayd intuu qoriyo soo suga inuu dadka ku gumaado oo dadka ku dhibaateeyo marka taa ayada wax la qaadan kara maaha. waxaan ugu baaqaynaa marka inaan degdeggaas oo isugu nimaadno saacadaan laga bilaabo meeshii aan joognaa annaga si markaas arrintii ay jirtay aan u joognay aan u fulino marka aanan noqonin kuwa inta badan lagu soo turturaa meesha marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay arrinta ayada laga dhiibiyo gaar ahaan reer Muqdisho in arrinta ayada ka dhiibiyaan meel kasta ay joogaan arrinta isugu yimaadaan mana la ogolaan karo xaaladaha hadda soo jiray. runtii wixii la soo mareen aad iyo aad loo ogyahay inaan gadaal ugu noqdo ma rabo waa la ogaa maxamed Abdullaahi Farmaajo sida uu wax ku maamulayay inay sidaan iyo si qaabkan ku dhamayn doono haddayna hadda la iska qabanin runtii waxa la soo maray waa la ogyahay wixii maamulada doorashooyinka ka dhacay si sameeyay ayaa la wada garanaa dad inta la iska xiro maalin walba la iska xiro iska xiran nin musharax madaxweynaha inta la xiro 2 sano xirnaado dad haddana ay yiraahdeen anaga waxaan sameynaa banaanbaxan ka qayb galeynaa in la xabadeeyo marka wax la qaadan karo ma marka waxaan leenahay arrintan ha loo wada istaago ninba maalintiisa ay taagantahay runtii haddii maanta laga dheeli waayana maalin aan la gaari karin la taagan doono. marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa maanta in isugu yimaado degdegga daahsoon. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum. Sheekh Xasan Sheekh Aadan wadana waxay hadlaa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لما تذكر كان فليا لما نبص ما الملل الجوام وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسن سيدا عبد السعودين بقى وحنا كسبنا هاي هوتيل المائدة عاورون في وحنا كان عاي آد وفولكم أنا عباري كريم قف صومالي أو سمرنا كل كلمة كريم أبين مدو نور جورنا هوتيلكي إنه رسوا ويرضى ماشي للربع اللي وقفته بنانبحة نبضات اللي رسوا ويرضى في ضمه runti loo diyaariyay in qaranka istifaacan waajibkooda gudanayay oo banaanbaxa sidoo amnigu ahaa lahayd ka shaqeynayay in lagu soo wararo hubkii iyo wiilashii loo diyaariyay in qaranka Soomaaliyeed difaacaan oo ay mataqaana qaar dilaan oo qaar dhaawacaan oo argagixiyaan dadkii aad iyo aad aan ugu waana runtii wax dhaawac weyn u geysanaya sharafta iyo hamiga weyn ee dadka Soomaaliyeed u leeyihiin qarannimada 60 sano in ka badan ayaan qarannahay maanta waxa la filayo waxa waaye nidaamka dimuqraadiyadda inuu si wanaagsan u tilaabo qaado maxaa yeelay waxaan soo aragnay dhibaatada ay leedahay diktatoriyadda dhibaatada ay leedahay sharciga oo lagu tunto dhibaatada ay leedahay xuquuqda aadanaha oo lagu tunto marka maanta waxaan filaynay in aan ka soo waantownay oo aan u socono qarannimadii inaan u socono horumar inaan u socono dowladnimo iyo Soomaalinimo laakiin nasiib darro waxa ah dadkii loogu talagalay inay difaacaan qaranka
qofka Soomaaliga sharafkiisa difaacaan amnigiisa sugaan in asaga lagu soo weeraro sidaas darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa arrin muhiim ah inaad ka jawaabtiin waa arrin muhiim ah inaan ka wada jawaabno halkan waxaan u joogno waxa waaye xoojinta dowladnimada xoojinta dimuqraadiyadda xoojinta xuquuqda aadanaha oo la'aanteed dowladda inay istaagi karin marka waxaan ugu yeeraynaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meesha ay joogaan guriyahooda inay ka soo baxaan u istaagaan xorriyadda u istaagaan dowladnimada u istaagaan sharafka bannaanka u soo baxaan mataqaanaa isugu yimaadaan meelaha la isugu tago bannaanbax waxaan qabaa kaliya kuma koobnaanayo magaalada Muqdisho magaalooyinka Soomaaliya dhammaanteed waa in laga sameeyaa waa in loo soo bannaanbaxa arrintaan arrin muhiim waaye ummaduhu sharafkooda iyo qarannimadooda iyo dimuqraadiyadooda waa difaacaan waxa ugu dambeeya waxay ahaan muhiimaad waa la socotiin wixii ka dhacay waxaad aragteen shacabka Turkiga wixii ay sameeyeen oo geesinimada lahaa waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed ay ka geesinimo badan yihiin ay sameey karaan wax ka weyn qof kastoo isku dayo xukunka inuu isku dhajiyo ku gaaro ku joogo si sharci darro ah waa in la tusiyaa xaqiiqada madaxweynaha waa lagu ixtiraamay waqtigiisii waxa aan dalbanayna waxa waaye doorasho kula oo xalaal ah wax kale aan dalbanayna lama aha waxaan u bannaan baxayna waa intaasna in la soo dhaweeyay mudan tahay in dhibaatada isugu geysto ma mudna marka dadka Soomaaliyeed maanta waxaan rabnaa inay u heeliyaan xorriyadda inay u heeliyaan dimuqraadiyadda inay u heeliyaan dowladnimada inay u heeliyaan sharafka ummadda Soomaaliyeed inay ka hortagaan dulumka iyo waxa dhacaya meesha waxa lagu soo weeraray waa beebayaal anaga waxa aan wadanay waxa waa istaafyo khaas oo anaga nawaadgeynay in maanta beebayaal lagu soo weeraro oo wali hadda loo sheegayo abaabul xoogan inuu socdo aad iyo aad aan uga xunnahay dagaal dadkii ka soo shaqeeyana waa la ogyahay meesha ay ku dambeeyeen dagaal cadaalad darro ah oo dulum ah guulku ma dhammaado marka waa ka waaninaynaa madaxweynaha inuu halkaas ku joojiyo maanta dhiigaa daatay dhibaataa dhacday ummad Soomaaliyeed aad bixiyay waxaan leenahay madaxweyne kafaak waxaad geysatay dhaawac weyn ummadda Soomaaliyeed geysatay halkaas ku jooji wiilasha Soomaaliyeed lagu abaabulay dagaalkan waxaan leenahay ka jooga waxaad gacmaha la gasheen waxiid hubna waa yaala magaalada Soomaaliyana waa yaala wiilalna waa jooga laakiin ma rabnaa inaan isticmaalno waxaan rabnaa inaan isticmaalno nabad waxaan rabnaa inaan isticmaalno dowladnimo waxaan rabnaa xukunkaas 4 sanaba in la isdoorto ciddii la doortana ay hogaamiso alla soo baxaan billahi wa mahadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh